laakiin oran lahaa war wiilashow waa walaalahay baadsiin dharkiina meedna waa nala dhalateen maxay heeday noo naxariis inaan Soomaaliyeed ama magaalada Muqdisho in kufsi lagu geystay كل إنه سومالي مركب كفسلو جستنا وحنا نركض شري أنا يركب مظاهرات ضدكيو شركوا دبحيو ده قيلية سوحن هذه ما أنت نلمدحونا بوسير الردلة قيلية سوحن بعض الحين لهيدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتوا أنا وناسنا خير تغالقة حدنا عن يفضياء يفضين سيجتك ونبدأ إذا عاو كهر ما أنا رجع وياي وعرب صداوة والله ما مرة شاكتك مدة كلا كبر عدير أنا نقول ليه بكتاجية هذا يسبق الله وصليته عبد الرحمن استي يو واحد تكسيه runtii waxa jirta arrimo aad u xun oo aad u foofooxun oo damiirkeenu aanu qaadan karin kulli qof kasta oo damiir lana uu ka damqanayo si kasta ay haataba maanta lamaanash maxaa fadhiga ka soo kiciyay maxaa saynoo wada bal waxa marka koob ku soo dhaweynaya walaalkay Cabdi Raxmaan isagoo u baxnaa si gudbin doona aad bad mahadsan tahay walaal arrin in wada damaqday haddaynu nahay dad marka laga yimaado Soomaaliya haddaynu nahay dad Islaam ah ayaynu caawa halkan u soo istaagnay ee aynu dhamaantiin ka wada hadlaynaa waxaan si gudbinayaa aad iyo aad baad mahadsan tahay walaal caawil bilaa sidaas sheegteen baa walkan waxaan soo istaagnay arrin aad iyo aad noo damaqday hore wiligeeda arrimahaas oo kala kamaanan hadal balse laakiin wax soo noqnoqodkooda bateen ay noqotay maadaama in dad Soomaali nahay muslim nahay aan isku dirna xanana dawanu ka damqnay walaal wixii arintaas aan doonaa caawinaan ka hadalno insha Allah wiilna karim ma sha Allah kulli qof kasto oo dhintay saacadiisu dhimanaya balse mar kasto waxaan aragnaa hooyo Soomaaliyeed oo ooyeysa oo walibana ka ooyeysa inanteedii la dilay ama la kufsaday ama la jarjaray ama dabaq laga soo tuuray maalin walbana hooyo Soomaaliyeed ilinteeda dhulka inay ku dhacdaa oo qof weydii maalin walba ka ay ka ooyeyso أنا عيلك منو سي أتكون على تم جرين سي وات صوران كرتا هو إذا الماين إنسان أنا درين كابو ودوناني وهجاج بالعبد الرحمن حالد يقدم بيسي يانا تطبق على قصة طوري بالدرين كابو كواتن بالشدة إن لو ذا إن هذا رحت والله وح عن هو بقرن ماي طيرو نفط سيجد أحسن نيو هرت وح نوجين أنتي لو نشري عشاء إلهي هون حرستي qaabkii loo dilay iyo wixii meesha ka dhacay foosh xuma mid ka daran ayaa dhacday inaan la dhaho Xamda ilaahay iyadana uu naxariistay ayaa sidii si ka sii xun iyo fal ka sii xun inaad loo geystay horta anigu niyo intaanan anigu mid aan kelmadahan oranayo oo hal mid ka horeysiin waxaan leeyahay qof kasto YouTuber qof kasto oo dad bulshada dhexdeeda ay garanayso arinta waa inuu ka soo hadlo codkiisuna meel gaaray ilaahu laba qofna reerkaasi waa inuu helo reerka inantaasi ka baxday waa inuu cadaalad helo iyo cid kasta oo niyow moogtahay falka noocaas oo kale ay ku dhacday cadaalad wayna helaan ilaahayna wuu rogayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi dhaar bay ka dhacday haddii aan arrinkaas sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabin soo ma garanaysid falka noocaasa waxaan ku yiri lixdan nin waxaan ku yiri aqligoodu midna siin waayay inanta u kala hada qadarkii wuu dhacay soo maaha jawaab degdeg ah waa in la bixiyo soo ma garanaysid hooyooyinkaana loo gurmuday dadka iyo ma garanaysaa islaamka saa loo galiyo maalin walba cid kasta oo codkoodu meel gaarayna ama TikTok ha ka soo hadlo ama YouTube ha ka soo hadlo ama Instagram ha ka soo hadlo meeshii laga yaqaano sadaqay ku tahay codkaaga u gaarsi dawlad kasta oo meel kasta oo arrinkaas ka dhacona dawladii markaa xukunta waxaan anigu oran lahaa warniyow arrinkaas sida ugu dhaqsiya badan looga jawaabo waan ka baxa waa mahadsantahay walaalkay kullay qofka dhintayna cadaalad buu rabaa hooyada ooyeysaana cadaalad bay rabtaa iyadoo waliba ilmaheedii aan ka samreynin oo runtii aynu leenahay samriye man Allah ka siiyo balse haddana haddii cadaalad darro lagu sii sameeyo waa dhibaateynteeda leh waxaan ku soo dhaweynayaa walaashii ubax ku soo dhawaad ubax waxaan leeyahay horta arrintan aad bay u soo noqnoqoto Aisha ka horeysay oo maxay ahayd tolay si xun loo dilay oo sida loo dilay wallahi aad iyo aad aan uga xumaaday maantana waxa ku xigta inanta dabaq laga soo tuuro ka sii xun dadkan horta marka ugu horeysa anigu waxaan la yaabanahay dadkan miyayna jiirna xaq u oolin miyaanay muslimnimo damqaynin miyaanay soomaalinimo damqaynin
xagee lagu arkay 6 nin oo boqolayaal sheeganaya oo intay gabadh isugu tagaan walibana dila miyaa rag weligood way isqaban jireen ma mid qabta xataa waa la waayay taa waxa ka sii daran dawladda ka sii daran waxba ka qabanna haddii ay dawladdu wax ka qabanayso oo qofkii wax sameeyaba abaalkiisa la marinayo waxaas ma soo noqnoqdeen waxaas oo dhan waxaan oran lahaa waxa ugu wacan waa dawladdu waa inay wax ka qabataa waxaas oo dhan ku dhacayaan waa dadka masaakiinta qof lacag la waxaas oo kale kuma dhicin welina lama sheegin dadka masaakiinta ayaa la dulmaya oo dadkii la doonayay in loo adeego dadkii loo adeegi lahaa loo naxariista la yiri ayaa sida loo dulmaya sida loo galaya weliba dawladnimadana u baahnaa waxaan leenahay Soomaalida haddii jiirnaxay isugu keenyaalo haddii Soomaalinimo iyo Muslimnimo idin damqayso maanta inagu awood ma lihin ay wax kaga qabanno dawlad ba inaga sarreysa Soomaa haddaanay dawladdu waxba ka qaban karin shacabku waa inay kacaan oo damiirkooda waa inuu ka dhiidhiyaa waxaan la qabanayo maxay ahayd tolay waxba tari mayso 150 qof oo sawirkeeda kolba meel soo dhigo raahda oo aan kula damqanaynaa laakiin waa in ay shacabku kacaan waa in la isdhiiri geliyaa waa in waxaan wax laga qabtaa waayo wax bulshada ku sii fidaya maxay ahayd tolay inay naftii bini aadanku agteena ay wax yar oo fudud neef xoolaana ay ka jabnaato ay ka fududaato والله هو واحد وفرحنا. طلباتنا دقن بابي نقول كرتا دي سنة لقول سوا. دقن بين نقول كرتا. ديلكيس كده واحد رفض بنقول. وهذا عادي بو ما ستين ولالكي عبد الرحمن يورا شيوبة ودرين كده رنتي هالكن أنا لقول ساعة بيركين أنا على شابي حنوتي إتاني كبدنا وحكرنا ونصير هذا هرتا ما قرنا يو طلباتي تدخل هالكا وحيابها كده عيان dad badan oo waxa jeeyay YouTuber ah oo jooga Muqdisho iyo agagaarkeeda ayaga laftigeedana xoran lahaa arintaasi arin u baahan wacyi gelin in bulshada laga wacyi geliyo weeyaan ha ka aamusnaana bali walaashaabay ku dhici habayartaabay ku dhici hooyadaabay ku dhici mana yeelayno in dumarkiina ay noqdaan wax yar oo fudud oo la iska kufsado oo la iska dilo oo la iska soo tuuro waana ka damqanayna waana ka dhiidiyay sidoo kale shacabka Muqdisho hal baan u sheegayaa maxay ahayd talay waxaan leenahay intii dhigoodu maxay ahayd toreeyda u joogo maanta damiirkoodu joogo ha ka dhiidhido ha ka mudaharaado waxana wax sii soconaya waa wax biritoole kan nadaawanayo waxa walaasha xataa ku dhici kara hadii ay maanta sidan lagu daayo walaasha baa loo soo galaya hooyada baa loo soo galaya wax aliyaalo wax laga tagaya ma jirto maanta anagu Muqdisho ma joogna Hargeysa joognaa waa in mudaharaad kama mudaharaadi karna halkan laakiin waa inay shacabku ay ka dhiidhiyaan ay ka soo horjeestaan arintan hadii ay dawladdu waxba ka qaban karo weeyday halkaasaan kaga baxaynaa waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii fikirkooda nala wadaagayna xagga hoose committee-ga nagula wadaagaan bal asxaabta kalena iyagana waa ku soo dhaweynayaa si iyaguna fikirkooda ku aadan ay halkan inagula wadaagaan iyo shucuurtoodaba aad baan idin salaameynaa asxaabta qaaliga meel kastoo joogtaan kulli arrinta halka la soo istaagnay maanta aan idinku nimid waa arrin aad u culus haddii maanta hooyooyinkii Soomaaliyeed hablihii quruxda badnaa sharafta idinka mudnaa loo soo dhigtay waa hawl culus kulli walaashin sida wada ogtihiin ba social media waayaan waxa la isla wareegay in Soomaaliyeed oo wadanka xamar ama magaalada Muqdisho in kufsi lagu geystay kulli in Soomaaliyeed marka kufsi loo geystayna waxaan arki jiray dhalinyar ka mudaharaada dadkii jirkooda dubaxyo deeqayliyo sawaxan hadii maanta nin madaxweynaha ba wasiir la ridi la qayliyo sawaxan baad bixin lahaydeen oo ummadda idinka fadhiisan way lahayd laakiin inta Soomaaliyeed inta kufsi wina loo geystay inta 6 nin oo boqolayaal inta isku tageen haddana fooq ka soo tuureen ilaahay baan idinku dhashay miidaan damiir lahayn miidaan damqanayn miidaan walaalo dhalo miidaan hooyo idin dhalo ma dhali doon miidaan dhali doon miidaan dhixi doon in habluhu waa ku sharaf lahaa hablaha waa tila ilaalin jiray hablaha markaad macallimidu u qaldamo ka kala saaxiibkii baa qaban jiray waa inanimadii la qadarin jiray meeday waxaan oran karaa wallahi waa arin aad u xun in hablihii Soomaaliyeedna waa loo soo dhigtay ayaan daray u tahay inanka Soomaaliyeed maanta inan walaashiyo kala intuu kufsaday daba ka soo tuuray aakhiriya adduunkana ku waarmaayo ku gubanaya ilaahayna calaamad degdeg ah ka muujiyo oo ummadda u bidhaanta in dambi geystay waa in Soomaaliyeed ay u qadar jabiyay waxaan arkayaa abtigeed baan u maleynayay inuu ahaa adeerkeed ma garanayo ka hadlay abtigeed waxa oo miyaydan dhiig lahayn wuxuu uri yani waxay u qaban jirtay hawlaha ay gabadh dumar u qabatay gurigii nadaafadoodii way caawin jirtay goblan buu noqday maanta oo qofkii caawin jiray marka qof aad haystay ku caawina waa qof adduunkii baynu ku tirey la moodo marka qofkaaga weydii waxaad noqonaysaa qof goblana uu goblamay
naxdintiisa inkaartiisa miidaan ka baqanayn iyada mustaqbalkeeda future-keeda dumse miidaan ka baqanayn dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kasta joogtaan arrinta laga dhiidhiyo arrintaana ha laga hadlo waa in Soomaaliyeed waa geeyaan waa u wixii dalka guri aanay inaan joogno wada ogtina waa dam marka balse qiimaha ay leeyahay maxaad ugu yeeli weydeen marka aanu kale hadal badan ma soo istaagan meesha asxaabta kale inta kale oran doonta ee hablaha Soomaaliyeed loo gurmadan lay mudaharaad laga sameeyo ha laga hadla meel kasta oo shacabka Soomaaliyeed ay joogaan hablaha xaqooga ha la siiyo horta wallahi wax laga xumaado Yasminay aad iyo aad baan uga xunahay waxa inta walaashay ku dhacay run ahaantii marka dumarta waa dareemi kartaa walaashay waxaan anigu oran lahaa horta familka ka dhalatay Ilaahay samiri iimaan haydi ka siiyo aamin ayaan oran lahaa waxaan laakiin oran lahaa war wiilashow waa walaalahay baadsiin dharkiinan meedna waa nala dhalateen maxay heeday noo naxariista oo hablaha Soomaaliyeed oo naxariista oo dhibaatada naga daayay hadda xitaa kufsateen bal kufsiga geysteen dilka maad ka daysaan oo iska noolaan leed baa kufsiga ka soo kaban leeyahay wala Ilaahay ka baqdo habliina asturta oo walaalihiin daaya ilaa waatan gurigeedii ka shaqeynaysa dharkeediisii marisa cuntaydiisii karinaysa hawlo badan idii haysa ay dhashay waliba iyadoo jirkeedii lagu qalay ayaa haddana idin kuna doonaysan aafaysaan oo waliba noloshaad u huri weydaan jarka turtaan wala Ilaahay ka baqdaan taan weyn oran lahaa wallahi inta waan ka jiidhocdo walaashay reerka maanta in masiibada haleeshayna waxaan leeyahay Ilaahay samiriye ma haydi ka siiyo qalbiga Ilaahay haydi ka reebiyo qulubta inanta walaashayna dayada Ilaahay baa uga jaraya Ilaahay baa xaq sooraa bulshada maanta hadii si kasta aan u hadalno oo waxaan ku guri garsaar oo si kasta u hadlo waxba u tarimayda laakiin Ilaahay ayaa wax u taraya oo u soo celinaya baan ku guri xaqeedina u taraya maanta waan ku xumay wallahi ku dhacay walaashay inta san ku joojinaya